Raggu waxay u dhimanayaan broken heart syndrome laba jeer heerka dumarka. Dhammaanteen waan ka warqabnaa xanuunka nafsiga ah ee qalbi jaban, buugaag, heeso iyo filimaan aan la tirin karin ayaa la qoray oo laga sameeyey mawduuca, laakiin waxaa sidoo kale jira caddayn cilmi ah oo muujinaya in wadnaha jaban uu sidoo kale u dhiman karo. Ereyga farsamada waa takotsubo cardiomyopathy, daciifinta wadnaha oo ay keento walbahaar jireed ama shucuureed. Daraasad cusub oo ay sameeyeen cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Arizona ayaa eegtay xogta 199 eber bukaan oo ku nool Maraykanka intii u dhaxaysay 2.16 iyo 2.2. Dhacdooyinka tawaxyar ayaa kor u kacay muddada daraasada ee lab iyo dhediga labadaba, laakiin guud ahaan dhacdooyinka guud ahaan waxay ahaayeen kuwo sare u kaca dumarka. Dhimashada iyo dhibaatooyinka ay keentay xaaladdu aad bay u sarraysay. Tani waxay ku habboon tahay cilmi baaris hore oo soo jeedinaysa in wadna xanuunka wadnaha uu ku sii badanayo Maraykanka. Inkasta oo xaaladdu ay aad ugu badan tahay haweenka, haddana dhimashadu waxay ka badan tahay 2 jeer ee ragga, iyadoo 2% ragga ay dhinteen marka la barbardhigo 5% dhediga. Tirada guud ee dhimashadu waxay ahayd 5%. Waxaan la yaabnay in aan ogaano in heerka dhimashada ee takotsubo cardiomyopathy uu ahaa mid aad u sarreeya iyada oo aan isbeddel weyn laga helin daraasada 5 sano ah, iyo heerka dhibaatooyinka isbitaallada ayaa sidoo kale kor loo qaaday, ayuu yidhi dhakhtarka wadnaha ee dhexdhexaadinta Marisa Moffett oo ka tirsan jaamacadda Arizona. Cilmi baarayaashu waxay soo bandhigeen malo awaal ku saabsan farqiga u dhexeeya ragga iyo dumarka. Taa waxaa la rumaysan yahay in ay keento hormoono badan oo walbahaarka oo ay ka dhashaan walbahaarka jidhka ama shucuureed. Marka culayska jidhku waxa uu noqon karaa qaliin ama caabo, halka culayska shucuureed uu noqon karo furiin ama dhimasho qof aad jeceshahay. Heerarka dhimashada wadnaha ee jaban. Heerarka dhimashadu aad bay u sarraysay, laakiin ragga way ka sarreeyaan. Cadaadiska jidhka taa wuxuu ku badan yahay ragga, taas oo sharxi karta tirada sare ee dhimashada ee ay keentay xaaladdu. Cilmi baarayaashu waxay sidoo kale u malaynayaan kala duwanaanshaha dheelitirka hormoonka ee u dhexeeya jinsiga inuu door ka ciyaari karo. Dhibaatooyinka ka dhashata waxaa ka mid ah wadnaha oo aan shaqaynin 9% bukaanada, fibrilada atrial 2.7%, shooga wadnaha 6%, istaroogga 3%, iyo xiritaanka wadnaha 4%. Ta inta badan waxaa loo calaamadiyaa sida wadne qabad ama laab xanuun sababtoo ah isku ekaanshaha calaamadaha. Laakiin cilmi baarayaasha ka dambeeyey daraasadan cusub ayaa rajaynaya inay kor u qaadaan wacyiga cudurka si ay u noqoto mid si wanaagsan loo baaro loona daweeyo si waxtar leh. Dhibaatooyinka qaarkood sida istaroogga emboliska ayaa laga yaabaa in laga hortago bilowga hore ee daawooyinka ka hortaga hinjirowga ee bukaanka qaba muruqa wadnaha oo aad u daciifsan ama leh garaaca wadnaha aan caadiga ahayn ee loo yaqaan atrial fibrillation, kaas oo kordhiya khatarta istaroogga, ayuu yidhi Moffett. Ta waa wax ay yaqaaniin xirfadlayaasha caafimaadku in muddo ah, laakiin weli waxaa jira su'aalo badan oo aan laga jawaabin oo ku saabsan xaaladda labadaba, sida lagu ogaan karo iyo sida khatarta dhibaatooyinka loo yarayn karo. Kiis kasta oo taa ma aha mid ay sababto kala go'a xiriirka, laakiin waxaa cad in waayitaanka qof aan jecelnahay ay cawaaqib badan u leedahay caafimaadka jirkeena iyo maskaxda, iyo in wadnuhu uu mararka qaarkood qaadi karo culayska. Heerka dhimashada sare ee sii socota waa mid naxdin leh, taasoo soo jeedinaysa in cilmi baaris dheeraad ah lagu sameeyo daawaynta wanaagsan iyo helitaanka habab daweyn oo cusub oo xaaladdan, ayuu yidhi Moffett.